والله nimanka Soomaaliyeed waa ka yaab yaa anaa isqaba eri nin kasta wuxuu isir xabadaan u jeedin yaa luuqo isoo gala siilka iyo naasaha isoo sawir siilka iyo naasaha isoo sawir siilka iyo naasaha ku soo sawirsay u fiirsay marka wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaad leenahay waqtiga ay idin waxnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka leegta ku qabata waxa rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeena umuuraha qofkaasi uu leeyahay ilaahay inuu u saalaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda u barakeeya inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta siina sheer gareeya waxa rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeena dambigood iyo dambiga waalidkood beebe inuu dhaafo rabbi subxaanahu wa ta'aala uu ku casuuma jannatul firdaws ala ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiya maal aysan filaynin waxaan xaasidka leenahay wa min sharri xaasidin idha xasad al xaasid la yaflah biin illahi al kareem waxa ku dambeeyo hoog iyo qasaaro waxa rabbi subxaanahu wa ta'aala aan ka baryeena xaasidiinta in guryahooda hoog iyo qasaaro ilaahay uu ka tusaa leegta lacag ma ahay ku qaba muuqaalka leegta tani waa gabar Soomaaliyeed oo dhumisay dhaqankii iyo diintii lagu soo barbaariyay waxayna baal martay dhaqankii suubanaa iyo sharaftii ay lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed markii aynu la xiriirnay familka gabadhan ayaa waxay inoo xaqiijiyeen inay gabadhan inta aysan tagin qurbaha ay ahayd gabar aad iyo aad u wanaagsan kuna adag diinteeda islaamka walow hadda ay gabadhan ka jeestay xagga diinta taasina waxaa loo sababeynayaa isticmaalka TikTok kahor inta aysan bilaabin isticmaalka TikTok gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad u dhowrsan ahna mid ku dhaqanta diinteeda islaamka laakiin markii ay bilowday isticmaalka TikTok waxaa lagu arkay dhaqamo hore aan lagu arki jirin iyo isqaawis iyo hadallo maala yacni ay ku hadasho saan ma loo fadhiisto ma fahanteen saan hadaa u fadhiisid tuura yeelaysa saana loo fadhiistaa si dushaada tuur u yeelanin ma fahanteen marka saasaa la dhahaa saan ma la dhaho marmarka qaarna waxay u gaftaa diinta islaamka iyadoo sheegta wax walba oo afkeeda soo qabto haddii aad booqato TikTok-geeda waxaad ku arkaysaa fiidiyooyin anshax xumo ah marna ay qaawan tahay marna ay waxay rabto ku hadlayso hadalladaas oo aan looga baran gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta iyo milgaha leh saakay gidgidis baan u baahnaa lahay saan in lee gidgidiyo saan inta u gidi yaa in lee gidgidiyo saak saan bidix lee gidi midig lee gidi bidix lee gidi midig lee gidi yaa gidgidis waas kaaga baahnaa lahay dabadaan weyn saaka ninaan saaro aan saan aan wijiga aan guriga waara bilaay yaa dabadaan weyn inaan wijiga ka geliyo kirig aan ku dhuuso waara bilaay aan ku dhuuso fiiq shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gabadhan u duceeyaan inuu Ilaahay ka soo hadiyay wadadan qaldan ay ku socoto taasoo ku sababi karta inay diinta iskaga baxdo sida hore looga arkaba haweeney badan oo ku dhaxwaashay social media ay ka koob yihiin maamuliyun kuwaas oo ugu dambeyntii soo caayay nabigeena sharafta badan sallallahu alayhi wa sallam hadaba gabadhan familkeeda hadayna maqlayaan waxaynu ku codsan lahayn inay gabadha wada waaniyaan kana hor istaagaan inay dhaqamada xunxun ku sii socoto bulshada Soomaaliyeedna waxa u gudboon inay gabadhan ka hortagaan dhaqan xumada ay hadda ka bilowday social media gaar ahaan TikTok dhaqan xumada oo aad reebto waxaad ka dhaxli kartaa ajir iyo in Ilaahay kuugu shafeeco jannada saakay gidgidis baan u baahnaa lahay saan in lee gidgidiyo saan inta u gidi yaa in lee gidgidiyo saak saan bidix lee gidi midig lee gidi bidix lee gidi midig lee gidi yaa gidgidis waas kaaga baahnaa lahay dabadaan weyn saaka ninaan saaro aan saan aan wijiga aan guriga waara bilaay yaa dabadaan weyn inaan wijiga ka geliyo kirig aan ku dhuuso waara bilaay aan ku dhuuso fiiq والله nimanka Soomaaliyeed waa ka yaab yaa anaa isqaba eri nin kasta wuxuu isir xabadaan u jeedin yaa luuqo isoo gala siilka iyo naasaha isoo sawir siilka iyo naasaha ku soo sawirsay u fiirsay marka saan ma loo fadhiisto ma fahanteen saan hadaa u fadhiisid tuura yeelaysa saana loo fadhiistaa si dushaada
tuur u yeelanin ma fahanteen marka saasaa la dhahaa saan ma la dhaho